xildhibaanada sharafta leh haddaad saan ku socotaan macnaheedu waxay tahay ajandahaad carqalayn ku wadaan fadhiista xildhibaanada sharafta leh xildhibaanka waxay ku dhaceen hadli doono buuq iyo sawaxan ayaa hareeyay fadhiga maanta ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kadib markii xildhibaan Maxamed Sheekh Cabdullaahi Ciiro loo diiday inuu ka hadlo fadhiga maanta ee golaha shacabka xildhibaanka ayaa maanta sidoo kale waxa loo diiday inuu ka dhaafo garoonka diyaaradaha aadan cadde isagoo ku sii jeeday magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee Koonfur Galbeed ilaa iyo hadda lama sheegin sababta rasmiga ah ee ka dambaysa in xildhibaanka loo diido inuu u dhaafo magaalada Baydhabo guddoonka oo xildhibaan Ciiro u diiday inuu sharaxo dhibaatada ka qabsatay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho ayaa intaas wixii ka dambeeyay waxa buuq qabsaday gudaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaanada ayaa dalbay in xildhibaan Maxamed Sheekh Cabdullaahi Ciiro la siiyo hadalka sidoo u sharaxo wixii ka qabsaday garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho taasina ay ka muhiimsan tahay ajendaha maanta wuxuuna fadhiga baarlamaanka Soomaaliya maanta isku bedelay sidaan xildhibaanada sharafta leh xildhibaan gaaraxo xildhibaanku waa la siinaa fadhiiso xildhibaan gaaraxo waa lagu furaa codka joojo xildhibaanada sharafta leh xildhibaan Ciiro waa maasan tahay hadalkana ku wato waxay sug xildhibaan Ciiro markaan amar bixiyaa lagu sii doonaa xildhibaanada sharafta leh ajandaheena waa ansax laakiin waxaan ka hormarinaynaa xildhibaan Ciiro inaan siino hadalkiisa ajandaha waa la ansixiyay xildhibaan Ciiro waa hadli kartaa waa maasan tahay xildhibaan hadal أنت ماها وعلا أنت نايمة هاتينا بتعقلين اللي بانا هاتينا يستعقلين وين ما تعقلين دونه هلو xildhibaanka waxay ku dhaceen hadalka siinay xildhibaan Ciiro waa hadli doono xildhibaanada sharafta leh haddaad saan ku socotaan macnaheedu waxay tahay ajandahaad carqalayn ku wadaan fadhiista xildhibaanada sharafta leh xildhibaanka waxay ku dhaceen hadli doono xildhibaanka hadlaa Ciiro asaan siinay asaan dhiibanay xildhibaane hadal ajendaha maanta ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ahaa akhrinta koowaad ee sharciga tacliinta sare oo ay soo gudbisay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya